Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamay walaalaha meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub youtube-ka aad daawanaysaan waa Fiyor Official fadlan haddii aad ku cusubtahay subscribe iyo saar channelka like-na igu xiji intaa kadib muuqaalka maanta waxaan kula wadaagi doonaa sida aad adeeg u jeedaba 7 qodob oo aad uga badbaadi kartid coronavirus sida ognahay baryahan waxaa dunida kusii faafaya cudurka haliska ah ee loo yaqaano coronavirus kaasoo malaayiin qof ku sababay geeri intaa kadib muuqaalka maanta waxaan kula wadaagi doonaa 7 qodob oo aad uga hortagi karto cudurka loo yaqaano coronavirus 7 qodob waxaan ku soo saari doonaa shaashada waana ku akhrin doonaa waana ku sharxi doonaa qodobka ugu horeeya wuxuu yahay ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo muddo 30 ilbiriqsi ah nadaafadu waa qayb ka mid ah jirka cudur kastana wuxuu ka yimaadaa nadaafad darro iyo jeermis iyo wasakh adaba qodobka ku dadaal qodobka labaad wuxuu leeyahay ku dabool afka iyo sanka tiish ama maro adag adiga oo xusulka laabaya marka aad qufacayso ama hindisaysid qodobkan waa qodob aad u muhiimsan waayo maxaa yeelay cudurka waxaa lagu kala qaadaa hawada waayo maxaa yeelay qofka markuu hindiso waxaa ka imaanaya dheecaan laga yaabay dheecaankaas in uu ku soo gaaro isla markaana waa muhiim in markii aad qufacayso aad isticmaasho maro ama tiish qodobka saddexaad ha u isticmaalin gacmahaaga qufac iyo hindiska waayo gacmahaaga waxaad ku salaami kartaa shaqsi kale kaasoo aad ka soo qaadi karto cudurka sidoo kale qodobkan waa qodob aad u muhiimsan waayo maxaa yeelay markii aad marayso wado waxaa ka hor imaanaya qof kasta qof saaxiibkaaga qof walaalkaaga qof qaraabadaada ah waad salaami kartaa markaas karto inuu cudurka qabo waa inaadan ku isticmaalin gacmahaaga afkaaga iyo sankaaga waayo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in aad ku qaado qodobka afraad xusuusno in aadan gacmahaaga ku taaban sankaaga afkaaga iyo indhahaaga qodobkan wuxuu la xiriiraa qodobka ka horreeyay ee saddexaad waayo maxaa yeelay cudurka wuxuu ku bataa markii aad korkaaga isku taabato qodobka shanaad xiliyadan waxaa mamnuuc ah in hal weel wax la isugu wadaago haddii ay noqon lahayd cunto ama sharaab isku day in aad cuntada ku isticmaasho weel ku qaas ah waa sax waayo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa waxaad tagi kartaa maqaayad sidoo kale waxaad tagi kartaa guriga laga marti qaadi karaa marka waxaa la diidaa in yacni qof cudurka qabo aad la isticmaasho hal weel isla markaana aad soo qaado halkaa qodobka lixaad waa inaad joojisaa walwalka iyo shakiga badan markii aad marayso wadada waayo waxaa laga yaabaa in adiga lafti ahaanta lagaa shakiyo isla markaana lagu geliyo qol ay ku jiraan kuwa qaba cudurka qodobkan waa qodob aad u muhiimsan waayo maxaa yeelay qofka markii uu maqlo cudur waxaa laga yaabaa qofka markuu wadada mara inuu shakiyo ama walwal uu ka abuurmo isla markaana waxaa jiro dad yacni fara badan oo shaki badan isla markaana waxaa laga yaabaa in lagu soo qabto lagu geliyo meelaha laysku baaro kuwa ku jira cudurka iska ilaali qodobka toddobaad ee ugu dambeeya haddii aad isku aragto calaamadaha cudurka corona sida qandho qufaca neef qabasho durbadiiba la wadaag dhakhaatiirta waayo haddii aad qariso wuxuu kugu sababi karaa geeri malaayiinta qof ee ku dhintay cudurkan ayaa la sheegay in inta badan markii uu ku dhaco cudurkan ayagoo ka xishoonaya inay soo bandhigaan ay qarinayaan uu ku sababo geeri waa inaad iska ilaalisaa waa in markii uu kugu sababo islamarkaa aad la wadaagta dhakhaatiirta si xaaladaada loo dejiyo wax lagugu qabto waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ku dadaal 7 qodob si aad uga hortagto ama uga badbaado cudurkan fadlan subscribe saar channelka like noogu xiji waad ku mahadsantahay daawashada videogan